dhalashadii iyo barbaarintii rasuulka sallallahu calayhi wasallam. wuxuu rasuulka sallallahu calayhi wasallam dhashay sanadkii caamul fiil maalin isniin ah oo bisha rabiicul awal ahayd 53 sano hijrada ka hor. markuu dhashay waxay hooyadiis u cudirtay awowgiis cabdulmutalib oo ay ugu bishaaraysay dhalashada nebiga sallallahu calayhi wasallam. cabdulmutalib waa uu bishaaraystay wuxuuna tegay kacbada oo uu alle ku baryey wuuna ku shukriyey. rasuulka sallallahu calayhi wasallamna wuxuu u dooray magaca maxamed oo ahaa magac aanu carabtu la bixi jirin. wuxuu guday maalinkii 7aad. waxaa rasuulka sallallahu calayhi wasallam nuujisay dhowr maalmood suweyda oo ahayd jaariyadii abilahab. markaas ka horna adeerkiis xamse nuujisay. hase yeeshee intii badnayd waxaa rasuulka sallallahu calayhi wasallam nuujisay xaliima bintu abi du'ayd, xaliimatu sacdiya, oo uu qabay xaarith binu cabdulcuza, kunyadiisa la oran jiray abikabsha. kunyadaas oo mararka qaarkood ay qurayshi rasuulka sallallahu calayhi wasallam ku magacaabi jireen ayna dhihi jireen ina abikabsha. habka ay ku nuujisay xaliimo waxaa jirtay caado ay carabtu lahaayeen oo ahayd inay dumarku ka imaan jireen baadiyaha oo ay soo aadi jireen magaalooyinka si ay uga qaataan carruur ay nuujiyaan oo ay u jiro yacni xoolo ama lacag ku helaan. xaliimo waxay tidhi, annagoo dumar badan ah ayaan magaalada maka soo aadnay si aan carruur uga qaadanno. markaasaa loo bandhigay dumarkii oo dhan inay qaadaan wiilkan agoonka ah. hase yeeshee dhammaantood way diideen, waxayna dhaheen maxaan ku samaynaynaa inankan agoonka ah. dumarkii oo dhan waxay heleen carruur. markaas ayay xaliimo ku tiri ninkeedii, wiilkan agoonka ah yacni nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaan qaadayaa. isagiina wuu ka yeelay. isla markiiba dameerkeedii socon waayey awal ayaa dameeradii kale ee dumarku wateen ka dheereeyey ilaa ay dumarkii xaliimo ku yidhaahdeen noo tartiibi. xaliimo naasaheediina caano ayay yeesheen, xoolihiina waa u darareen ilaa dadkii la deganaa ay la yaabeen barwaaqadaas oo ku yidhaahdeen xooloraaacyadoodii soo daajiya xoolaha meesha ay xooloraacyada ina abidu ay daajiyaan. kadib markay xaliimatu sacdiya 2 sano soo nuujisay nebiga sallallahu calayhi wasallam ayay u soo celisay hooyadiis, laakiin waxay ka codsatay inay sii hayso. hooyadiis aaminana way ka yeeshay, sidaa ayayna ku ceshatay mar labaad. kadib rasuulka sallallahu calayhi wasallam markuu 4 ama 5 sano jiray, isagoo weli la jira oo la jooga xaliimo ayaa maalin isagoo wiilo la ciyaaraya waxaa u yimid jibriil. markaasuu qabtay oo legday oo intuu qalbigiisa jaaxay ka soo bixiyey cad yar. markaasuu ku yidhi, tani waa dheeftii shayddaanku kugu lahaa. kadib intuu dhaqay yuu meeshii ku celiyey. wiilashii la joogay ayaa iyagoo ordaya u yimid reerkii oo ku yidhi, maxamed waa la dilay. markaasay u yimaadeen isagoo miyir doorsoon. markii uu miyirsadana waxa uu u sheegay qisadii. markaasay reerkii go'aansadeen inay hooyadiis u celiyaan, wayna u celiyeen. kadib nebiga sallallahu calayhi wasallam hooyadiis ayuu la noolaa ilaa 6 sano uu ka gaaray. markii uu 6 sano jiray ayaa hooyadiis aaday madiina si ay u soo booqato qabrigii ninkeedii cabdulaahi, iyadoo ay la socdaan sodogeed cabdulmutalib, jaariyadeedii umu ayman iyo nebiga sallallahu calayhi wasallam. bil ayay soo joogeen madiina, kadibna dhammaantood way soo laabteen. hase yeeshee markii dhexda la marayo ayay nebiga sallallahu calayhi wasallam hooyadiis xanuunsatay, kadibna way geeriyootay. waxaana lagu xabaalay ama lagu aasay meel la yidhaahdo abwaa oo maka iyo madiina u dhexaysa. halkaas ayuu nebigu sallallahu calayhi wasallam ku noqday agoon iyo rajayba, yacni aabbo iyo hooyo la'aan. waxaana kafaalo qaaday awowgiis cabdulmutalib oo aad u jeclaa una dhaqaalayn jiray. hase yeeshee 2 sano kadib markii uu nebigu sallallahu calayhi wasallam 8 sano jiray ayuu awowgiina geeriyooday. wuxuuna markuu dhimanayay kala dardaarmay abitaalib oo ahaa nebiga sallallahu calayhi wasallam adeerkiis. kadib waxaa nebiga sallallahu calayhi wasallam kafaalo qaaday adeerkiis abitaalib oo uu la joogay ilaa uu ka hana qaaday. qisadii baxiira. markii rasuulku sallallahu calayhi wasallam 12 sano jiray ayaa adeerkiis abitaalib iyo rag kale oo quraysh ka mid ah safar ugu kicitameen dhinaca shaam. wuxuu markaa rasuulku sallallahu calayhi wasallam ka codsaday adeerkiis inuu raaco. adeerkiisna waa uu ka yeelay. dabadeed markuu safarkii baxay waxa uu sii maray meel la yidhaahdo busra oo ay safarada qureysheed ee shaam u socdaahi sii mari jireen. uuna deganaa nin raahib suufi ahaa oo baxiiro la oran jiray, haystana diinta masiixiga, cilmina u lahaa waxyaalihii uu ilaahay ku sheegay towreed iyo injiil. ninkaas raahibka ah safarada qureysheed waa ag mari jireen, danna kama geli jirin. laakiin maanta wuxuu arkay calaamooyin ku saabsan wiilkan yar ee safarka la socda, calaamooyinkaas oo kutubtii hore lagu sheegay. markaas ayuu ninkii martiqaad u sameeyey safarkii oo dhan. waa ay la yaabeen, waxayna yidhaahdeen, weligayo waanu ku agmari jiray, martiqaadna nooma aadan samey jirin, ee maanta maxaa jira? wuxuu ku yidhi, waa sax, laakiin marti baa tihiinay imaada. markii ay u yimaadeen wuxuu yidhi, ma cid baad ka soo tagteen?
waxay ku jawaabeen yar ayaanu rarkii uga soo tagnay. Baxiira ujeeddadiisu waxay ahayd wiilka yar, markaasuu yidhi u yeera gabanka. markii la qadeeyey ayuu Baxiira su'aal weydiiyey Abi Taalib oo ku yidhi wiilkan maxaad u tahay? wuxuu ugu jawaabay aabe ayaanu ahay. Baxiira wuxuu yidhi suurtagal maahan in wiilkan aabihiis nool yahay ee maxaad u tahay? Abi Taalib wuxuu yidhi adeer baanu ahay. intaa kadib Baxiira wiilkii ayuu gees ula baxay, wuxuuna weydiiyey su'aalo. ugu dambeyntiina wuxuu ka arkay khaatumkii nebinimada oo nebiga sallallahu calayhi wasallam garbihiisa dhexdooda ku yaalay. Baxiira wuxuu ku yidhi Abi Taalib wiilkani arrin weyn ayuu yeelan doonaa. waxa aan anigu ka fahmayna hadday nimanka Yahuudda ahi ka fahmaan waa ay dilayaan, ee ku celi magaaladiisii kana ilaali Yahuudda. Abi Taalib markuu alaabtiisii soo gatayba si degdeg ah ayuu ugu soo rogmaday Maka. markaas kadib wuxuu rasuulku sallallahu calayhi wasallam Maka ka baxay hal mar oo kaliya ilaa hijrada laga gaaray. rasuulka sallallahu calayhi wasallam markuu soo barbaaray waxa uu bilaabay inuu buuraha Maka ariga ku ilaaliyo. guurkii Khadiija. markuu rasuulka sallallahu calayhi wasallam 25 sano gaaray wuxuu guursaday Khadiija bintu Khuwaylid. Khadiijo waxay ahayd qof maalqabeen ah, quruxna leh oo ka sheeganayd haweenkii Quraysheed, waxayna da'deedu ahayd markaas 40 sano. ka hor waxay soo guursatay nin ay 2 caruur u soo dhashay. Khadiijo maalkeeda ay hadba qof u dhiibi jirtay si uu ugu tijaareeyo, waxayna wax ka siin jirtay faa'iidada. waxay maqashay Muxamed ibn Cabdillaahi sallallahu calayhi wasallam runtiisa, dabeecadiisa wanaagsan iyo amaanadiisa oo Maka oo dhan caan ka ahayd, oo loogu magac daray loona bixiyey Maxamed Amiin. markaas ayay u yeertay nebiga sallallahu calayhi wasallam una soo bandhigtay inuu xoolaheeda maanta u tijaaro geeyo. rasuulka sallallahu calayhi wasallam waa uu ka yeelay oo tijaaradii ayuu qaaday, waxayna ku dartay wiil u joogay oo la yiraahdo Maysara. nebiga sallallahu calayhi wasallam iyo Maysara waxay xoolihii u qaadeen Shaam, halkaas oo nebigu sallallahu calayhi wasallam ku soo iibiyey xoolihii uu kaxeeyey, isla markaasna wuxuu soo gaday wixii Maka looga baahnaa. faa'iido aad u badan ayuu nebigu sallallahu calayhi wasallam Khadiijo u soo hooyey, taasoo u keentay kalsooni dheeraad ah iyo inay aragtay amaanadii iyo akhlaaqdii rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Maysara wuxuu u sheegay Khadiija waxyaabo mucjiso ah oo nebiga sallallahu calayhi wasallam ku arkay. sidaa daraaddeed Khadiijo markii ka aragtay nebiga sallallahu calayhi wasallam arrimahaas iyo waxa la midka ah, waxay rasuulka sallallahu calayhi wasallam u soo bandhigtay inay isguursadaan. rasuulku sallallahu calayhi wasallam waxa uu la tashaday adeeradii, wayna ka aqbaleen, wayna u dooneen oo labadii ehel ayaa isku yimid. halkaas ayaana rasuulka sallallahu calayhi wasallam loogu meheriyey Khadiijo oo uu nebigu sallallahu calayhi wasallam qabay ilaa uu 50 sano dhaafay. waxay nebiga sallallahu calayhi wasallam u dhashay caruurtiisa oo dhan marka laga reebo Ibraahim oo ay dhashay Maariyatul Qibdiya. waxayna nebiga caruurtiisu sallallahu calayhi wasallam ahaayeen 3 wiil oo la kala oran jiray Ibraahim, Qaasim iyo Cabdullaahi, oo la oran jiray Tayyib iyo Taahir, iyo 4 gabdhood oo la kala oran jiray Zaynab, Ruqiya, Kalthum iyo Faatima. 3 wiil way saqiireen, hase yeeshee gabdhihii way hana qaadeen oo islaamka ay la kulmeen, wayna wada islaameen. gabdhaha waxaa loo kala guursaday sida tan: Zaynab waxaa guursaday Abilcaas, Ruqiya iyo Kalthum waxaa kala guursaday 2 wiil oo Abi Lahab oo nebiga sallallahu calayhi wasallam adeerkiisa ahaa uu dhalay. ninkaas oo rasuulka sallallahu calayhi wasallam aad u dhibay, caqabadna ku noqday dadkii inay islaamka qaataan, ayaa markay soo degtay suuratu Lahab wuxuu Abi Lahab u yeeray labadiisii wiil, wuxuuna ku yidhi u fura Muxamed labadiisa gabdhood. wayna fureen. kadibna waxaa 2 gabdhood iska daba guursaday Cuthmaan bin Cafaan oo ay labadiiba ka dhinteen. Faatimo waxaa iyada guursaday Cali bin Abi Taalib oo ahaa nebiga sallallahu calayhi wasallam in adeerkii. nebiga sallallahu calayhi wasallam caruurtiisa oo dhan way ka wada hor dhinteen Faatimo mooye, waxaana caruurtiisa ugu weynaa Qaasim, waxaana ku xigay Zaynab, waxaana ku xigtay Ruqiya, waxaa ku xigtay Kalthum, waxaa ku xigay Cabdullaahi oo ugu yaraa bah Khadiija. rasuulka sallallahu calayhi wasallam caruurtiisu waxa ay dhasheen nebinimada ka hor. Cabdullaahi waa la isku khilaafaa inuu nebinimada ka hor dhashay iyo inuu kadib dhashay, waxaase loo badan yahay inuu nebinimada kadib dhashay. Ibraahim isaga wuxuu ku dhashay Madiina sanadkii 8 ee hijriyada islaamka, waxaana dhashay Maariyatul Qibdiya san soo tilmaamnayba. la soco qaybta xigta iyo siirada nebiga sallallahu calayhi wasallam.